si lama filaan ahna cod kale ayaa laga maqlayay hoosta guriga. Aabihii hortooda joogay ayaa ka falceliyay codkaas, waxa uuna u dhaqaaqay dhinaca kale. Kadibna aabba kale ayaa ka soo muuqday qaybta hoose, wuxuuna u muuqday mid caadi ah oo wareersan. Runaantii sheekadani waa cabsi, balse maxaa dhici kara? Gabdhihiina waxay noqdeen kuwo si buuxda u jahwareersan, waxayna garan waayeen midka saxda ah. Isla mar ahaantaasina hooyo kale ayaa soo muuqatay iyadoo aan wax dareen ah lahayn. Waxay u dhaqaaqday si aamusnaan ah. Ficilkeedana wuxuu ahaa mid cabsi leh. Waxay u muuqatay qof kale oo aan ahayn hooyadood. waxa ayna qaadatay dubbe, waxayna isku dayday inay ku dhufato ninkeeda. Kadib waxay u jeestay gabdhaha si ay u disho. hooyadan waxa ay bixisay dhoola cadeen cabsi leh, kadibna waa ay ka tagtay. Inkastoo ay cagaha ka dhaawacmeen, wax xanuun ah ma aysan dareemin. daawade aadna waxaad ilowday inaad muuqaalka la gareyso beedkan aad follow soo dhaado si aan u gaarno 100,000 ee followers mahadsanid. isla mar ahaantaasina hooyo kale ayaa ka soo muuqatay jaranjarada ayadoo wareersan. qof kastana waa uu la yaabay waxa dhacaya. qolkii gashay hooyadii hore ayaaba ibir noqday. dubbe kaliya ayaa yaalay, taas oo cadeynaysa inay jirto. qoyskan wuxuu fahmay in arrintu aysan ahayn mid caadi ah, waxayna ogaadeen in wax shar leh guriga galay. shaygaasina wuxuu awood u leeyahay inuu isku ekeysiiyo dadka. qof kasta ayuu noqon karaa mar kasta. maalintii xigtay aabbaha wuxuu wacay walaalkiisa oo wadaad ah. wadaadkii ayaa yimid si uu u caabiyo. markuu sheekada maqlay wuxuu aaday guriga deriska. dabayl xoog leh ayaana bilaabatay. wadaadkii wuxuu bilaabay inuu fahmo in dhibaatadu ay ka weyn tahay hal guri.